بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن سلام يا ولا لها كم يديسن ما بشينا نروح تبادل له حند الله السلام الله عليكم سلام دبدت ربي جنب ما هذا له ملقنا رسول كنا عليه الصلاة والسلام أبال يدعو والد باله أما أنا واحد لقد دي سوق مقابل سي متشان نروح تبادل له وقهريو الشريف عبد المالك قدوميها مدوغ عشراف iyo guddigiisa xambalyeeya abaalnaqnaga gudooba marka hore xigtana magacayga waa Muna Aadan Xasan Muna Kaalmay ayaan ku magac dheerahay barasho wanaagsan falorta dadkayga xilmaan hadalku ma jiro magacaygu waa inuu ugu horeeyo balse waan ilaabay hiraale ahaada marka aan idin la kaftamay ashraafay horta maxaa tafaraarku idinku wacan tafaraarku maxay noogu wacan ummadaha islaameed ama ummadaha ilaahay kooda hal doorka ah aftahankoodii indheergaradkoodii culimadoodii madaxay saartaan way bombooniyaan inagu ma lihin maxay noogu dhacay waxa kaloo bariyahan arkayay social media dad maaga isku qaatay oo ashraaf oo inta waxay doonaan iska sheegayaan Facebook page-ka sidoo kale TikTok meelahaas oo la iska wada caynayaan maxaa man kala qaaday geligeeba laba nin baynu nahayba waa Xasan iyo Xuseen inaga geligeeyo labadaas nin baynu nahay wax la kala qaado ma lahan tafaraaruqa ma fiicna dadka waxaan sheegay afku xooglayaasha social media midinka bidayo ee umaraha isku diray waxaan sheegay midnimada la ogaado ilaahay laga cabsado mid kalena waa leeyahay culimo awdiinka waa maktabada ugu sareysay ee bulshada culimo awdiinka waxaan farayaa inay madaxda iyo aqoon-yahanada sidoo kale ganacsatada inay xiriir badan la sameeyso si ay fursado badan u helno fursado badan baa banaanaan doona haday afartaas qof ay inoo sameeyaan xiriir waa culimo awdiinka madaxda aqoon-yahanada sidoo kale ganacsatada afartaas il baynu leenahay haday iyaga ay shuraaka noqdaan ay xiriir sameeyaan oo ay isku xirmaan waxa soo baxaya fursado badan oo dhalinteena maanta bilaa amalka wada ah ee wax baratay meelaha taagtaagan ayaa waxay helayaan fursado mid walba meel baa madaxa loo gelinayaa shaqo abuuro kala loo sameeyaa sida darteed waxaan leeyahay isku xirnaadaan ashraafay isku xirnaada hadal badan yahaan u bulsho intaas waa garashadayda assalaamu calaykum